بسم الله الرحمن الرحيم muuqaalka ugu horeeya waxaan ku bari doonaa sida loo saxo ama loo set gareeyo cabirka u baahan tahay inaad ku shaqaysid waxaa og tahay markii aad naqshad sawiraysid waxaa ku qasban tahay marka hore inaad dooratid cabirka aad ku shaqayn doontid mitir miyaa ku shaqayn doontaa ma sentimitir aad ku shaqayn doontaa millimeter maa ku shaqayn doontaa ama waxaa isticmaali doontaa feet iyo waxaas isticmaali doontaa inch soomaali markaa joogna annaga mitir aa isticmaalnaa marka cabirka waa inaad ku set garaysaa mitir ku set garaysaa see u set garaynaya marka badanaa waxaa arki doontaa unitka in laga sixi doono dad ay qorayaan oo kale units inay qoraan halkan ay ka saxaan laakiin sida saxda sidaan maahan waxaa u baahan tahay inaad qortid minus dwg units aad qortid enter aad siisid halkan waxaa kasoo baxaya marka unitka kuu dooran number 1 waa inches number 2 waa feet 3 millimeter 4 centimeter decimeter and number 6 meter adiga number 6 aa u baahan tahay laakiin halkan markaad fiiriso waxaa kugu jiro number 2 aa kugu jiro number 2 waa feet you don't want feet marka adiga halkan aad tagaysaa number 6 aa gelinay enter aa leedahay wixii ka dambeeyo way saxan yihiin enter hit khalaas ilaa ka dambaysid oo mar labaad kaaga soo baxo intaa markaad samaysid sidaas aa unit ku saxday hadda marka haddii aad qortid units haddaad qortid waxaa arkaysaa meeshii ahayd in isbedeshay meter isku bedeshay ma u baahan inaad saxdid marka saas aa unit loo saxaa waa inoo qaybta dambe